kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya waxay malaayiin dollar oo lacagaha bishii ka heshaa ganacsatada ku dhaqan magaalada Muqdisho. Lacagtan waa sababta ugu weyn ee kooxda weli u jirto dilalka iyo dagaalankana u sii wado. Lacagahaas dadka lagu dilay waxaa ka mid ahaa isla kuwii bixiyey ama ehelkooda. Hadda waxaa socda dagaal dhowr weji leh oo ka dhan ah kooxda al-shabaab. Mid ka mid ah dagaalyahanada al-shabaab waa in dhaqaale ahaan loo wiiqo kooxdan. Haddaba warbixintan waxaan ku eegaynaa waxaa dhici kara haddii ay ganacsatada magaalada Muqdisho joojiyaan lacagaha ay siiyaan kooxda al-shabaab. Haddii ganacsatada reer Muqdisho joojiyaan lacagaha ay siinayaan al-shabaab, waxa ay badbaadinaysaa naftooda, midda ehelkooda iyo midda bulshada kale ee magaalada ku dhaqan. Lacagaha ay bixiyaan ganacsatada waxaa lagu iibiyaa hubka lagu gubo caasimadda. Waxaa musharax loo siiyaa dagaalyahanayaasha, waxaana lagu fuliyaa qaraxyada. Al-shabaab waxay sii jirayaan inta ay lacag heli karaan. Haddii ay lacag waayaan, ma sii jiri doonaan, sida ay ku sheegeen khuburada amniga. Al-shabaab hadda waxay ku jiraan kooxaha ugu dhaqaalaha badan ururada argagixisada ee adduunka ka jira. Waxaa jiro warar sheegaya in ay xataa lacag u diraan ururo kale oo argagixiso ah oo dibadda ah sida Boko Haram. Haddii ay ganacsatada Muqdisho joojiyaan lacagaha gaaraya in xataa dalal kale oo dibadda ah dhibaato looga geysto, ma sii jiri karto kooxdani al-shabaab. Ganacsatada Muqdisho waxaa canshuur ka qaada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, waxaana lacago qasab ah ka qaada al-shabaab iyo Daacish. Haddii ay joojiyaan lacagaha sharci darrada ah oo ay siinayaan kooxaha argagixisada ah, waxaa u haraya dhaqaale badan oo ay ku horumarin karaan ganacsigooda. Ganacsatada mas'uuliyiin ayaa ka saaran xasiloonida dalka. Lacagaha ay hadda Daacish iyo al-shabaab siinayaan waxay ka qayb qaataan amni darrada dalka, balse haddii ay joojiyaan, dalku wuxuu aadayaa dhanka nabadda, horumarka iyo weliba xasilooni, waxaana imaanaya fursado maalgashi oo caalami ah.